waa dhacdo la yaab leh oo saacadihii u dambaysay haysatay baraha bulshada. waa wiil aad u daayar oo 8 jira waxa uu yidhi walaalkay ayaa isdilay oo xadhi isku ceejiyey kadib markii uu isticmaalay xashiish tramadol ayuu isticmaalayay buu yidhi kadib waa uu waashay wuuna isdilay aniguna intaasi in ka badan ayaan cunaa waana lay soo qabtay mana doonaya halka inaan sii joogo waxaan doonayaa inaan ka baxo. hadda wiilkan yar ee 8 jirka ayaa sabab yaab leh ku kalifeen inuu xashiishadan u qabatimo. haddaba qisada wiilkan yar ee baraha bulshada qabsatay ayaan barnaamijkeena maanta aynu ku daaqaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka. waqtigu imaroono ragayga masaaro adana imaridaye. waa magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa haatan ka soconaya dagaal xooggan oo lagula jiro maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo dhibaato weyn ku haya bulshada Soomaalida qaybaheeda kala duwan. sheekadan wiilkan yar oo aad u xanuun badan isla markaana murugo xambaarsan ayaa waxaa ku eegi doona nolosha wiil 8 jira oo ku jira xarunta Maamowgaaso oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. 8 jirkan oo waraysi la yaab leh siiyay Cabdicasiis Riyali ayaa sheegay inuu isticmaali jiray balwad nooc kastoo ay tahay ka hor inta aan laga soo dhex qaban magaalada Muqdisho. wiilkan yar waxa uu yiri isagoo waramaya Cabdicasiis Riyali waxaan isticmaali jiray xashiish, khamri, sigaar, koolo iyo dawada tramadol ayuu waraysiga ku yiri wiilkan yar ee 8 jirka. intuu bixinayay waraysiga wuxuu ku sheegay in jiraan 2 wiil oo isaga la dhalatay isla markaana isticmaalayay maandooriyaha balse mid ka mid ah uu geeriyooday. waxa uu sheegay in wiilka geeriyooday uu ka weynaa balse uu isku dhex daldalay guriga kadib markii uu ku waashay isticmaalka maandooriyaha. xashiishka mirihiisa kala duwan, tramadol iyo bulji ayuu cabayay, waa ismarjiyay, waa waashay, guriga dhexdiisa xadhig ayuu kor ku xirtay ayuu yiri walaalkay oo dhintay. wiilkan yar oo waraysiga siinaya Cabdicasiis Riyali ayaa intaasi ku daray in balwadan ay tahay mid ay qabatimeen isaga iyo walaalihii. hadda 8 jirkan oo dhowr jeer ka baxsaday xarunta lagu xanaaneeyo ayaa waxa uu isbedeshay noloshiisa wuxuuna sheegay inuu sii wadan doono waxbarashada loo bilaabay. waan iska dhaafayaa ayuu yiri wixii hore waana joogayaa halkan oo ma doonayo inaan ka baxsado mar kale ayuu gabagabadii ku yiri waraysiga uu siinayay wiilkan yari Cabdicasiis Riyali oo booqday xaruntaasi lagu xanaaneeyo waxna lagu baro dhalinyarada da'da yar ee qabatimay maandooriyaha. hadda Cabdicasiis Riyali waraysigu ka qaaday wiilkan yar waa kan ee nala yar daawo. meel kasta laga soo qaban jiray maxaa isticmaali jirtay balwado? xashiish, khamri, sigaar, koolo, tramadol iyo diazepam. وغيرتها واحد لا يقبل برك هذا يالك قبرتان ما قصر جتا أيا 6 سنين. هاي دقر كان محاوية كوسمي أنا كمري أبا تكان فوله تكان أنا فوله تكان كمري لوكال أنا فوله فصو بعثا سدا جينك تامر حلقة لي وسيبه يس جينك وسيبه واقرت دقر أساس كوسو كاري حد ماشي أخونا شحي ما يلو كياني ينولش على سوا روشن عافية عيال كلش مجرين ولا الكعب حل وجه حل هي سؤال أنا أساس لبنا أصلا فقني أنا مالي كنا أنت محاو عرّي ما دام راشين وصيناي وحلو براي محاو عرّي يا ما هذا مفكرني مسوا جوجي أو حابرني أو كورلدي يا حشيش كي وحي بس كلافه أسكرابة وجوه يا وجوه الجوجي سوما
haye walaalkaa ka weyn ah يا walaalkaa ka weyn ah وادنتي soo u dhintay حشيش وعاباي هاي. حشيش مريس haye iyo talaamadool iyo bulji abay haye wasmarji waashti waa shis dilay guri dhaxdiis xariya kor ka yardi koras ku geena hooyada aabbaha ma joogaan haye hadda ma ugaasa ku hayso